waxa uu ahaa nin faqiir ah, balse waxa uu qabay xaas wanaagsan. nin faqiir ah ayaa waxa uu ku noolaa magaalada karaamaysan ee Maka, wuxuuna qabay xaas wanaagsan. maalin maalmaha ka mid ah ayaa xaaskiisa waxay ku tiri, ninkaygiiyow ma haysano waxaan cunno iyo waxaan xiranaba. ninkii waxa uu aaday suuqa si uu u soo raadiyo shaqo. wuu raadiyay balse ma uusan helin wax shaqo ah. markuu ku daalay raadinta shaqadii ayaa waxa uu aaday xaramka. halkaas ayuu 2 ragco ku tukaday, wuxuuna guda galay inuu Ilaahay baryo si uu kurbada uga feedo. markuu ducadii dhamaystay wuxuu u soo baxay xaramka barxadiisa, wuxuuna ka helay kiish. wuu fiiriyay wuuna furay, waxaaba ku jirta 1000 diinaar. ninkii wuxuu u laabtay xaaskiisa si uu uga farxiyo lacagta uu soo helay, laakiin xaaskiisa oo ahayd xaas wanaagsan way ku celisay lacagta, waxayna ku tiri, waa inaad u celisaa qofkii lahaa, maxaa yeelay xaramka ma bannaana in wax laga qaato. ninkii wuu baxay, wuxuuna ku laabtay xaramkii, wuxuuna helay nin ku naadinaya, yaa helay kiish ay ku jirto 1000 diinaar. ninkii faqiirka ahaa wuu farxay, wuxuuna dhahay, anaa helay, koo qaada kiishkaaga, waxaan ka helay barxadda xaramka. ninkii wax naadinayay in muddo ah ayuu fiirinayay ninkii faqiirka ahaa, kadibna wuxuu ku dhahay, kiishadan qaado, adigaa leh, waxaa kaloo ku jirto 9000 oo diinaar oo kale. ninkii faqiirka ahaa uu yaabay, wuxuuna ku yidhi sabab. kii wax naadinayay ayaa wuxuu yidhi, nin dhulka Shaam degan ayaa waxa uu siiyey 10000 oo diinaar. wuxuuna idhahay, 1000 ka mid ah waxaad ku tuurtaa xaramka barxadiisa, kadibna naadi, haddii uu kuu soo celiyo qofkii helay, wada sii dhammaan, maxaa yeelay waa aamin. daawadayaasha sharafta lahow ee janalka waxgarad, qisadan waxayna tusaysaa ama aan ka qaadanaynaa inaad si qoto dheer isaga fiiriso cidaad ilmahaaga hooyo ama aabbo aad uga dhigi lahayd. maxaa yeelay maanta ninkan haddii uusan qabi lahayn zawjkaas wanaagsan, waxa uu ku dhici lahaa xaaraan. xaaraantuna waa shay khatar ah, wayna ku daba soconaysaa noloshaada inta ka dhiman. xitaa firkaaga dambe ayaa laga yaabaa inay ka soo baxdo. balse haddaad tahay qof aamin ah, allana mar walba ka cabsada, Ilaahay ayaa meelaadan filayn kaa irsaaqaya. allana qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay, qofkii alla ka cabsada, alla waxa uu u furaa faraj, wuxuuna ka irsaaqaa meeluusan ka filanayn.